بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. وعشر كيني صدني اللباد وكبل آمنيا آيات تواني اللبا سورة المجادلة. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا هو الله يا رسول كيس رميو إذا ناجيتم مركع الله فقيسان الرسول رسولك فقدموا هرمريا بين يدي نجواكم فقينا كهر وحد هرمرسان صدقة هرمريا ذلك فقى النبي الله فقيسان هرتي إنا صدقة بحسان أيا خير لكم إذن خير بدن أو أطهروا إذن ظاهر نما بدن في قلوبكم قلوبتنا نكون ظاهر نما بدن فإن لم تجدوا هدي أيدان هلين وحا بحسان فإن الله الله غفور ومضافس بدن أو رحيم نحريس بدن أشفقتم ميا كعبستين أن تقدموا إن أظهر مرسان بين يدي نجواكم فقا النبي الله فقيسان هرتي صدقات صدقوين إن أظهر مرسان ميا كعبستين ومكبقتين فإذ لم تفعلوا هدي أيضا سمينين وتاب الله إلهي با إذن كسر نقضي عليكم إذن كركين فأقيموا أوغا الصلاة صلاة أوغا وآتوا بحية الزكاة زكاة بحية وأطيعوا الله إلهي أطيع ورسوله رسولك سنة أطيع ومغلى والله أله خبير ومنك كحوغال بما تعملون وحاءات سمينيسان. هل كان ولا ليال إلهي تبارك وتعالى وحو أمريا أدوميس المؤمنين تعا mid ka mid marka uu doono nabiga inuu la hadlo oo uu la faqo inuu marka hormariyo marka sadaqo oo marka sadaqo uu la baxo sadaqada nabiga la siin maayo kaleey salaatu wasalaam laakiin waxa la siinayaa dadka oo fuqarada iyo masaakiinta ah dadkaas marka lagu sadaqaysanaya kadib uu marka qofku nabiga uu imanaya markaas uu dantiisii iyo arintiisii iyo nabiga wuxuu uga baahnaa oo marka u sheeganaya markaas hadaba culimadu waxay yiraahdaan raxmatullaahi ta'ala calayhi xikmooyin baa ku jira in qofku nabiga inta aanu la faqin oo aanu la hadlin ka hor uu markaa sadaqa soo bixi xikmooyinka maxaa kamida waxa kamida culimadu waxay leeyihiin nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu markaa hayaa dan caama oo dadkii oo dhan markaa ka dhaxays waqtigii ummadda oo dhan ka dhaxeeyay oo ay markaa ummaddu nabiga calayhi salaatu wasalaam markaa ay ugu imanayeen waa waqti markaa dadka ka dhaxeeya nabigu dadku adeegay calayhi salaatu wasalaam marka maadaama nabigu waxa weeye danihiisina ay u dheer yihiin oo waqtigiisa danihiisii uga faa'iideysanayo sidoo kale dadka kale oo dhammaan muslimiinta ahna ay iyaguna nabiga calayhi salaatu wasalaam u imanayaan oo markaa danahoodii markaa ay nabiga waqtigiisii qayb kamid uga faa'iideysanayaan ayaa culimadu waxay leeyihiin dan caama iyo waqtigii ummadda loogu adeegayay maadaama uu qofkani markaa wax kamida uu isticmaalayo waxa fiican isaguna markaa inuu markaa uu la baxo markaa sadaqo oo intifaac markaa isagina markaa laga helo isaguba ila waa kan ku intifaacaya waqtigii markaa ummadda ka dhaxeeyay ila nabigu ummaddu ka dhaxeeya oo waqtigiisa dadku ugu adeegaya taas waa xikmad waxa kale culimadu tilmaamaan ay sheegaan oo xikmadaha kamid ah nabiga calayhi salaatu wasalaam maadaama qof walba uu tagayo hadii sadaqa la yiraahdo la baxo nabiga intaan la faqin dad oo waxyaabo aan muhiim ahayn ama iska maala yacniya nabiga ula iman laha oo oran laha rasuul Allah waxa noo sheeg rasuul Allah waxa saan rabnaa rasuul Allah sidaas ka waran oran laha oo waqtiga marka dayici laha marka la yiraahdo sadaqa la baxa inay dib u joogsadaan baa marka dhici karta oo marka ay lacagtii waayaan ama marka ay isiraahdaan ba
waxa weeye lacag laan baa idinku dhici marka xikmadahaas ay culimadu markaa sheegaan Allah wuxuu markaa daalika in sadaqada alla baxdaan ayaa khayru lakum idin khayr badan oo wa adharu daahinimo badan fi qulubikum qalbiyadina Allah wuxuu fa in lam tajidu sadaqada hadaydan helin fa inna Allaha ghafurur rahim ilaahi waa mid dambi dhaaf badan oo naxariis badan oo bimacna laga ma rabo qofkii waaya wuxuu la baxo wax allaalay wax laga rabaa markaa ma jirto maxaa yeelay istitaacada iyo awoodda qofku wax awoodayo ayaa markaa shay waliba markaa uu ku xiran yahay Allah markaa wuxuu yiri ashfaqtum ma ka cabsateen an tuqaddimu inaad bixisaan bayna yaday najwaakum faqina kahor inaad bixisaan oo hormarisaan sadaqaatin sadaqooyin miyaa ka cabsateen oo ma ka baqateen oo ma waxa istiraadeen xoolihiini ayaa markaa awaayaysan ama xoolihii bayd ka baaba'aya miyaa markaa istiraadeen Allah tabaaraka wa ta'ala xukunkii hadda aan soo sheegnay ee ahaa qofku markuu rabo inuu nabiga la hadlo inuu markaa sadaqa ka hormariyo ilaahay tabaaraka wa ta'ala wuu nasakhay oo meesha ayuu markaa uu ka saaray sida daraadeed cid ku amal fashay markaa ma jirtaba oo xukunka markaa fuulisay markii la soo deji aayaduna waxay noqotay ama xukunkanina mid markaana la nasakhay culimadu waxay sheegaan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda in markaa isagu markaa uu markaa la baxay intii aan la nasakhin inuu markaa wax bixiyay ayay sheegaan laakiin hadana culimadu waxay yiraahdaan sanadkaasina markaa waa daciifo talaftigeeda markaa waxba kama jiraan bay yiraahdaan culimadu markaa hadii Allah yiraahdo cid allaale iyo cid ku amal fashay haba yaraatay markaa ma jirto Allah markaa tabaaraka wa ta'ala xukunkii aayadin labaad oo 13aad buu ku nasakhay xukunkii aayada hore uu ku waajibay Allah wuxuu leeyahay ashfaqtum miyaad ka cabsateen an tuqaddimu inaad hormarisaan bayna yaday najwaakum faqina kahor inaad hormarisaan sadaqaatin sadaqooyin miyaa ka cabsateen oo qofkii in lacagtii uu waayo amba uu yiraahdo mala xool aan baa kugu dhici labada miyaad uga cabsateen Allah wuxuu fayd lam tafaalu hadii aydan sameeynin wataaba Allahu ilaahi baa soo noqday calaykum idinku soo noqday oo xukunkii uu idinka dhaafay oo uu idinka daayayba ee faaqiimu ooga as-salaata salaada wa atuu bixiya az-zakata zakada wa atii'u Allah wa rasuulahu ilaahi iyo rasuulkiisana adeeca oo maqla wallahu allam khabiir wa mid xogagaala bima ta'maluna waxa aad sameeynaysan alam tara miyana dogay nabi Allah ila alladheena kuwa tawallaw ka walidhigtay oo xigto ka dhigtay iyo saaxiib qawm iyo dad bay ka dhigteen saaxiib qawmkaas oo qadib Allah wuu carooday عليهم iyaga wuu carooday ma hum munaafiqiintu may ahaanin minkum idinka kuwa idin kamida may ahaanin wala minhum gaalada kamay mid ahaanin munaafiqiintu wayaxlifuuna way dhaaranayaan على الكذب بين أي كدارانيان والحال أي بين كدارانيان هم يجوا ومنافقين تي يعلمون أي أجيهين أنهم كاذبون إن أي مركب بين شيئين أعد الله إلهي ودياري لهم منافقين عذاب كأسو شديدا درا محايا إنهم منافقين ساء وحا حماضي ما شيء يا حماضي شيء سو كانوا أي أهايين يعملون كو عمل فلا اتخذوا وحا أي كدقتين أي كسميستين منافقين أيمانهم دارهودا أي دارنيين جنة قاشان أي كدقتين فصدوا وحي كتشيديين وأي كليحيين مؤمنينتي عن سبيل الله إلهي شدكيس فلهم منافقين توحوا سغناضي عذاب كاسو مهين ذا إهانة مركا صاحبة ومركا صرفتك قاضة لن تغنية مكا تريسو ومكا ديقيسو عنهم يجا حقودا أموالهم حولهودو وحبا مكا تريسو وحبا أنفع ميسو ولا أولادهم عرورتودuna ma ka deeqayso oo waxba kama tarayso min Allah ilaahi xaqiisa shay aan waxbana ulaa'ika kuwaas oo munaafiqiinta ah asxaabun naar wa naarta asxaabteeda hum iyagu
خالدون ويقليان فيها نار تدحديد يوم مال أي قليان يبعثهم الله إلهي أوصوص عاريو جميعا دمان تدحال أيهين فيحلفون مركاسي دارانيان له إلهي بيو دارانيان كما سيدي بيو داران يحلفون أيو دارن شرين لكم إذن كأيدكو دارن شرين مركا أدونك لجوغو ويحسبون وحي أمالينيان أنهم منافقين على شيء يكد السجيهين وحتريا ألا براروغا إنهم منافقين هم يجو الكاذبون وكوبين على يالا استحوذ وكقالب نقضي وكأت كاضي عليهم منافقين الشيطان ما كقالب نقضي فأنساهم كدنا الشيطان كي وحو اللوسيي أو هلمانسيي ذكر الله إلهي حسكيسي تبارك وتعالى أولئك كواس حزب الشيطان وشيطان ككوحديسي أروركيسي ألا براروغا إن حزب الشيطان شيطان كحزب جيسي كوحديس هم إيجا أمبا الخاسرون هو مركا خساريا وحو الله تبارك وتعالى إنكريا منافقين حديدك أي لسميستين أو مركا أي تعلادين أو حكتدا أي كدكتين قال هذا مركا الله تبارك وتعالى وحو تلماميا مركا أي منافقين تقالدي كولي دكتين أو صاحب أي كدكتين هدانا مؤمنين تي أي هدانا لجيران وحقنا مؤمنين مركا شيغانيا الله تبارك وتعالى أرنتاس أيا وحو كشيغي سورة النساء الله وحو المذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء منافقين توحي دح وريغيان أو دح هابيان دح سعدان قال هذا يددك مؤمنين تاس أي ودحيان كل بمركا قولي مركا آذيا يماشي كل با يسلاهدان نفعي وحتر بمركا يدون كجرا كوانا حقيقة هانو قمتر سنة كوانا ومؤمنين تانا حقيقة هانو قمتر سنة الله وحي تبارك وتعالى ما هم منكم ولا منه إذن كمان مدها كوانا وقال أنا كمان مدها وكل بهالك دنتو مركا يكجرت الله وحي ويحلفون وحي كل دارنا المنافقين على الكذب بين أي كل دارنا والحالة بين كل دارنا هم يجوا يعلمون مركا يوجهين أعد الله لهم إلهي منافقين توحوا دياري عذابا شديدا عذاب أضق ومركا دران محايا إنهم يجا ساء وححماضي ما كانوا يعملون وحي أي أهايان كوسميو عمل فلا وأدونك أي كسميان أي آدي حماضي ومنافق نمو قال نمو مركا إن مركا أي قرصدان تدكي مؤمنين تاهانا دب يدبات مركا إنك وحوي أي وقدح شقيان الله تبارك وتعالى وحول اتخذوا وحي كزيشين أيمانهم دارهودا جنة قاشان فصدوا وحي كهر استاغن المؤمنين تي عن سبيل الله إلهي جدك سبي كهر استاغن تبارك وتعالى مركا اتخذوا أيمانهم جنة هرنا وينصى مرني ومعنى وحوي ويدارنا يام كدنا دارتا سيسكو يدارنا يام وحي ربان حولهود يمالكود مركا إنو أبدبادو وأن مركا لغا تابنين الله مركا وحولي فصدوا وحي كهر استاغن تدك المؤمنين تها عن سبيل الله إلهي جدكيس لو معنى أي مفسرين وكفسرين معناها كوباد ابن جرير الطبري واشيغي رحمه الله وحليه ابن جرير الطبري أصل أهان قفكو هديو إلهي وكو قالوه أما قال لماذا ها قرصد أما يانو قرصانين أصل كوحها قفكاسي إن لا دغالمو iyo in la dilaabo ay banaan tahay xoolihiisa maalkiisa in la dhaco oo la qaataana ay banaan tahay marka nimankan deeyo wada waa gaalo waa munaafiqiin asalkuna sidaas uu ahaa laakiin fasaddu waxay markaa jeediyeen muuminiintii ilaahay shidkiisa bay ka jeediyeenoo markii ay shahaadateeynkii tawxiidka ay ku dhawaaqeen ay dadkii muuminiinta hadda markaa ka jeesteen taasa keentay markaa in laga jeesto oo markaa la iska dhaafo oo dariiqi aha in la mariyo oo ilaahay jidkii uu amray ahayd in nimanka la dilo la xisaabtamo sida gaalada loo xisaabtamo dadkii muuminiinta hadda markaa way ka jeediyeen oo nudqigaas markaa kaga jeediyeen
معناها لبعض وامحي فصدوا منافقين وحي كتشيدي المؤمنين عن سبيل الله إلهي شدكي تبارك وتعالى أو إيمان بموجستان كفر قال نمدينا ويقرصدان كدنا وحي اسكو إلاليين داريه أي دارنيين وبيانتاها مركاسا إن بدن oo dadkii muuminiinta ka midii oo xaqiiqada arrinkooda aan ogeyn oo muuminiinta u haystay waxay ku dagmeen hadalkoodii markaa rumaysteen deetana markii hadalkoodii rumaysteen maxaa xasilay oo meeshii ka dhacay de waxa weeye ilaahay jidkiisa inay dadkii qaar kamid ay ka hor istaageen oo xaadiisatul ifki xaadiisada iyo dhacdada loo yaqaan waxa dhacday nabigu kaleey salaatu wasalaam iyo saxaabadu iyagoo safar ku jira سورة النور بين وجود الدنيا إن شاء الله إلهي وكجورنا أيها واحد علي إن مركا عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين لوجود المعامة مركا إن مركا الزنيست والزنا مركا عيلت ننصح صحابة كم يدنا مركا وكزنيست وركي مركا هو فافي أو نمكن منافقين تهوي فافيين ودعايات بدن بفرام كدنا واحد علي ضدكي مسلمين تاها كوا كم يدي بقى ina arintii ay ku dagmeen oo warkii ay qaadeen oo warkii ay ka sheekeeyeen oo dadka ay ku dhexfaafiyeen marka taas oo kala marka dhacays marka qofka muslimka oo khaladka ku dhaca oo dadka munaafiqiinta ku dagma de ilaahay shidkiisa saxda aha baad laga hor istaagay marka labada tafsiir ayaa marka culimadu marka ay ku fasireen Allah wuxuu yiri falahum raga waxa u sugnaaday munaafiqiinta cadaabkaas oo muhiim daa'ihanat sharafta ka qaada markaas لن تغني عنهم يجا مركا ما كتريس وحبة وما كدقيسو أموالهم حولهم ولا أولادهم عرتودنا من الله إلهي حقيس كما دقيسو شيئا وحبنا مالكاس يا أولاداس أو دارت بينتا يكون إلى لنا إلهي حقيس وح الله عليه وح يقتر صحابيات مجرته الله وحول أولئك كواس وقال ذا أصحاب النار والنار تكون مركا قليل وأصحابتي نار توي هم أيقوا خالدون ويكواريان فيها نار تدحديد اتخذوا يوم مالنا أي نار تقليان يبعثهم الله وصوص عارية تبارك وتعالى جميعا ضمان حالئيهين فيحلفون له مركاسين إلهي ودارنيان كما سيدي بإلهي ودارنيان يحلفون لكم إذنك أيدكو دارن جرين بمعنى ما فيحلفون له وحلق وضع يحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على الهدى والاستقامة كما كانوا يحلفون للناس في الدنيا ما أنك قيامة مركا للصوصار إلهي وحي يقول أرنا يعني إليهن الله يو وحانو كسوغنين هنون يوناق يتوسنان مركا أدونك أن شوغني sidaas oo kala hanuun iyo wanaag markaan ugu sugnay marka adduunka joogeynta dhaartaan bay dhaarta ku badbaadi jireen marka aakhirada la tagan inay dad wanaagsan yihiin oo wanaag iyo amal saalix ka soo shaqeeyay bay hadana ilaahay ugu dhaaranayaan markaas way xsabuuna waxay u maleynayaan annahum iyagu ala shay'in inay shay ku dul sugan yihiin oo macna dhaartan inay anfacayso ilaahay marka ay ku dhaartaan tabaaraka wa taala inay wuxu tarayso oo ay badbaadinayso ay marka u maleynayaan laakiin wax ay ku dul sugan yihiin iyo dhaar badbaadinaysa marka ma jirto ala baraaruga innahum iyagu alkaadibuuna wa kuwa marka beenta sheegaya marka aayadka marka aan soo marnay waxa marka aan ka qaadanaynaa gaalada amba munaafiqa marka munaafiqnimadiisu ay cadaato lama taabanayo oo marka lama dilayo maxaa yeelay nabiga kaleey salaatu wasalaam marka sidaas marka sameeyay oo waxa dadka muslimiinta dhibta ka soo gaaraysa ayaa marka ka daran oo ah in hadhow la yiraahdo dadkii muslimiinta sheeganay oo tukanay oo salaadi oo zakada bixinay ayaa la laynaya marka nabiga kaleey salaatu wasalaam muu taaban jirin markaas sida daraadeed maxaa la sameeyaa markaas waxyaabaha la sameeyo lagu la dagaalamayo waxa kamid ah aayaadka soo degay oo in badan oo kamid waxay ka waramayaan gaaladii aayaadkaas lagu dul akhriyo markaas marka cabsi iyo warwar iyo meel fadhiistaan iyo meel galaan ay marka waayayaan markaas ragii marka munaafiqiinta ah laba waxa kale oo lagu ciqaabayo oo la sameeyo waxa kamid ah dadka ugu badan oo xuduudda ku dhaca iyaga waa qof gaalo ilaahay murmaysan tabaaraka wa taala waxba laga yaabaa inuu xado xumaan iyo ziniin ku dhaca dhici karta qof inuu qadfo xumaan ku sheega dhici karta
waxaas oo dhan sharciga islaamku waa xuduud oo mid walba markaa ciqaab iyo markaa wuxuu leeyahay markaa nidaam markaa la marinayo marka waxyaabahaas lagu xisaabtamaya laakiin markaa waxba markaa lama dilayo Allah tabaaraka ta'ala wuxuu yiri istixwada waxa ka qaalib noqday calayhim iyaga ashaytaanu shaytaan fa ansaahu markaasa shaytaanku wuxuu hilmaansiyay oo uu ilowsiyay dhikra Allah ilaahi xuskiisi tabaaraka wa ta'ala ulaa'ika kuwaas xisbu shaytaan wa shaydaanka kooxdiisa iyo ururkiisa ala baraaruga inna xisba shaytaan gaalada xisbigiisa iyo kooxdiisa iyo ururkiisu humul khasiruuna iyaga uunba kuwa markaa khasaaray halkan Allah wuxuu tilmaamay munaafiqiinta waxa sida u galay oo baadiyay inuu yahay markaa shaydaan ka qaalib noqday markii uu ka qaalib noqday uu ka xoog batay ayuu ilaahay dhikrigiisi iyo xuskiisi uu markaa halmaansiyay markaas oo uu dhaafi walihaada shaydaanku wuxuu ku dadaalayaa mar walba qof kasta oo muslima in markaa uu halmaansiyo oo markaa karkaarka uu weydaariyo xaqiina markaa uu garab mariyo qofku markaa inuu dadaalo ayaa markaa laga rabaa absa shayga ugu fudud wuxuu doona ha ahaade ayuu markaa qaar kuugu imanaya markaasuu ku leeyahay sidan ha sameeyna sidan baa la mid marka qaab markaa aayar oo tartiiba ayuu markaa shaydaankii kolba markaa khayrka uu ku dhaafinaya waxa sugan sida abi darda uu warinayo nabigu inuu yiri calayhi salaatu wasalaam sida abi daawud markaa sanadkiisa iyo matnigiisa ku soo saaray wuxuu yiri waxaan maqlay rasuulka oo calayhi salaatu wasalaam ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim as-salatu illa qad istahwada alayhim ash-shaytan nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam ma jiraan saddex qof oo ku sugan markaa magaalo amba tuulo amba baadiyo jooga hadii ay jiraan markaa dadkaas oo la tuqamu fihi musalaatu oo magaaladaas waxa weeye iyo meesha ay joogaan aanay salaadii ku dhex oogin inta markaa isu yimaadaan oo is garabsadaan oo is jamaacaystaan hadaanay sidaas dhicin oo mid waliba uu gurigiisa iskaga tukado qad istahwada alayhim ash-shaytaan shaydaan ba ka qaalib noqonaya oo wuxuu ugu sheekeynaya inuu mid waliba gurigiisa iyo booskiisa halku joogo markaa uu iskaga tukado markaas nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaani shaydaanku uu ku dadaalaya inuu qofkii jamaacadi dhaafiyo hadhow salaadii sunnaha dhaafiyo hadana hadhow waxa way faralkii uu dhaafiyo marka kolba qofku intuu wanaag sameeynaya waxay ka dhigan tahay isagii oo markaa shaydaankii markaa iska dhicinaya markaas marka nabigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam fa alayka bil jamaa'a waxad laazimta jamaacada dadka muslimiinta meeshii ku tukanayaan inaad ku tukato markaa aad timaado maxaa yeelay fa inma yaakulu dhiibu alqasiyata yeyga amba dhiibiga waxa loo yaqaan amba dhurwaaga wuxuu cunaa neefka xoolaha markaa ka shaadooba oo ka bax xooluhu markay daaqayaan neefka intuu meel gaar ah aado xagga uga baxa oo meel cidla aada midkaas ayuu markaa shaydaanku iyaygu markaa uu cunaa markaa shaydaankuna waa sidaas hadii meeshii khayrka lagu sameeyay dadkii aad ku dhex tukan weydo hadhow markaa uu ku duufsanaya Allah wuxuu tabaaraka wa ta'ala ala inna hizba shaytaan hum al-khasirun Allah wuxuu inna alladhina kuwa yuhadduna Allah ilaahi tabaaraka wa ta'ala la soo hodintamayo oo khilaafaya wa rasuuluhu rasuulkiisana khilaafaya ulaa'ika kuwaas fil adallina kuwa dulaysan ee markaa dhexdooda markaa ahaade kataba Allah ilaahi wuxuu waajibiyay oo uu qoray la aghlibanna wa an ka qaalib noqon ana aniga ayaa ka qaalib noqon oo ka adkaan wa rusuli rusushayduna way markaa ka qaalib noqon oo way ka adkaan inna Allah alle qawiyyun wa mid xoog badan oo aziizun ghalib la tajidu mehlis nabi Allah qawm yadad qawm kaasoo yu'minuuna billah ilaahi tabaaraka wa ta'ala rumaysa wal yawmil aakhir maalinka damana rumaysan mehlis qawm kaasoo yuwaaduna jeclaanaya man haadda Allah qofkii ilaahi khilaaf wa rasuuluhu rasuulkiisana khilaafay ma soo helis walaw kaanu haba ahaadeen kuwa ilaahi iyo rasuulkiisa khilaafay aabaahum aabayaashood ha ahaadeen
أو أبناءهم أما عرورتو ذا هذا أو إخوانهم أما ولاله ذا هذا أو عشيرتهم أما قرابته ذا هذا أولئك كواس كتب الله وحو كقري لوح المحفوظ في قلوبهم قلوب تودا الإيمان إيمان وأيدهم الله تبارك وتعالى وحو كحوتي بروح قرآن أولئك كواس كتب الله وحو كقري في قلوبهم قلوب تودا الإيمان إنه مركا إيمان صح مركا أي مضان ينبو إلهي تبارك وتعالى وقدري وقري وأيدهم الله تبارك وتعالى وحوتي بروح قرآن أي كحوتي أما بروح النصر يقول بكحوتي أو منه إلهي حق سكاء هذا ويدخلهم الله قلنا إيجا جنات جنوين كاسو تجري أي سعانيس من تحتها جنوين كهوستيدا الأنهار وبيال خالدين حاليهم كوكواريا فيها جنوين كدحدود رضي الله إلهي وكرها لنقضي عنهم إيجا ورضوا يجونا ويكرها لنقضين عنه الله حقيسة تبارك وتعالى أولئك كواس لقسوا شيكي حزب الله إلهي حزب جيسي يكوح دي سوي ألا براروغا إن حزب الله إلهي حزب جيسي يكوح ديس هم أيقو المفلحون وكو مركا ليبان هل كان الله وحكاها الله يكو الرميا قال هذا مركا مضح عذك أو إلهي يرسول كيسا مركا خلافيا الله تبارك وتعالى وحيري كو الله يرسول كيسا خلافة أولئك في الأذلين كواس كو الدليسان بي كل احترانه يكمل هذا مركا محادثة وحا الله يقانا ومن الحدود إلهي تبارك وتعالى حد يسوهدين بو سميه أو إلى هلقا يان لدافع قفكو مركا دافع معنيه وامحي وقف إلهي خلاف مركا كواسي waxay ka mid noqonayaan dadka marka dulaysan Allah wuxuu yiri kataba Allah Ilaahi tabaaraka wa ta'ala wuxuu qoray oo lawhul mahfuuzka uu ku qoray la aghliban waan adkaan oo waan ka adkaan aniga adkaan wa rusuli rusushayduna marka way adkaan oo way qaalib noqon marka Allah ayadan wuxuu ku sheegay oo hore u qadaray bishaarana marka in marka Allah mar walba uu qaalib noqonayo oo kuwa khilaafo xuduudiisa ka hor imaado marka uu ka qaalib noqonayo ورسولي رسوشي يدنا غالب نقن الحمد لله مركا آيات لما معنا أيا كسو أرورتي سورة غافر الله تبارك وتعالى وحليه إنا لننصر رسولنا وحنو غرغارينا ونهيريننا رسول سيدا إيا والذين آمنوا كوا الله iyo marka rasuulkiisa iyo rusushiisa marka rumeeyay fil hayati dunya adduunyada dhexdeeda ayaa loogu gargaaraya loogu hiilinaya marka de Allah tabaaraka wa taala inuu qaalib noqonayo way caddahay rusushiisana inuu in badan oo kamid u gargaaray iyadana marka way caddahay oo taariikhda xustay waxa soo haray waa maxay waa muuminiinta oo marka ilaa qiyaam saac marka noolaanaya iyagana ilaahay ba u gargaaraya laakiin waa goorma waa qofku marka uu ku taagnaado طريق رسولك عليه الصلاة والسلام طريق رسولك قفك آن خلافين وشرعي إلهي شرعي رسولك عليه الصلاة والسلام كتاقنا هذا وسيدي سوق رقمه هدي أي دعضب إني قال إسكهري مادان أو إسلايان وحوي ويغالب نقنيان ويأتكانيان لكن وقت جنا ينشوفنهم وحلاقي يا وينا أركت إن بدن أو كم يدودك مسلمين تاع إيجو مركه دقالمية هذانا طريق أي كود دقالميان أي كسوجيهين وطريق خلاف سن طريق رسولك عليه الصلاة والسلام فالمركة قفكاس سيدي لوغو هيلينيا ومركة إلهي تبارك وتعالى مركة وغرغاريا قفكي ربا مركة وغرغار هلو او غوليستو وقالب نقضو وإن رسولك عليه الصلاة والسلام طريقي نوغو تغي إن مركة وسيديس مركة وهايو أو كل ما مركة لغا ربا ولاليا الله وحده تبارك وتعالى لا تجد قوما نبي الله قال يدد مهلس وما أركيس قوم كان آن لأركين وآن لهليني وضد كسف يسان الله وصف يؤمنون بالله واليوم الآخر ورد إلهي بالرميسين يمالك قيامة
haddana yuwaaduuna man xaada allaha warasuulahu qof ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafayna oo gaal ahna haddana way jecel yihiin marka halkaa maxaa ka soo baxday aayaadkan laga soo bilaabo alam tara ila alladhiina tawallu ilaa hadda aayadan u dambaysa waxay ka waramayaan muwalaatul kufaar sideedaba waxa jirta mas'alo loo yaqaano alwalaa walbaraa alwalaa waa maxay alwalaa waa maxay waa almahabbatu wan nusra wa inaad jeclaato oo u gargaarto dadka muuminiinta ah sidoo kale waa in marka aad necbaato oo aad ka bari noqoto oo aad ka fogaato dadka marka gaalada oo ilaahay rasuulkiisa tabaaraka wa tacaala marka khilaaf marka waa sida marka aymada muslimiintuna marka ay cadeeyeen raxmatullaahi tacaala calayh oo wuxuu leeyahay imaam ibn taymiyyah rahimahullah fi kitaabihi majmuu' al-fatawa wuxuu ku tilmaamay ku sheegay hadii qofka muslimka ah uu ku xumeeyaba xataa isagoo muslina oo xumaani dib ku geysto waa jeclaanaysa dibta uu ku geystay xumaanta ma jeclaanaysa laakiin waxa jeclaanaysa mu'min oo ilaahay rumaysan tabaaraka wa tacaala inuu yahay marka sidaas marka tilmaamay sidoo kale wuxuu leeyahay gaalka waa necbaanaysa laakiin haddana haduu wanaag sameeyo oo wanaagu ku sameeyo wanaagii waa u cilmi oo abaalgudi oo nabiga kaleey salaatu wasalaam waa tii dhacday waagi uu maka joogay ee dacwadu marka ay daciif ahayd markii Taa'if uu ka soo noqday ee uu rabay nabigu magaalada maka inuu soo galo kaleey salaatu wasalaam ayaa wuxuu magangeliyo weydiistay gaalkii loo yaqaanay Mut'im ibn Adi markaas taariikhda ku xusan waa kii markaa magangeliyay oo isagiisii wiilashiisii in soo kaxeeyay ay Kacbada tageen oo ay seefo soo qaateen oo yiraahdeen ilaahay baan ku dhaaranay cid markaa Muhammad taaban kartaa markaa maanta markaa ma jirto marka halkaas ayaa aayaadkana markaa ay ku tacalluqaan ay ka hadlayaan mas'alada loo yaqaan al-walaa wal-baraa walaalayaal markaa nabiga kaleey salaatu wasalaam Allah markuu leeyahay la tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir yuwaaduna man haada Allah wa rasuulahu nabi Allah ma helisid oo ma arkaysid dad ilaahay iyo maalinka aakhir rumeey haddana dadkii ilaahay iyo rasuulkiisa khilaafay oo beeniyay haddana jecel macnaheedu waa maxay ma arkaysid dad gaaladiina jecel ilaahay rasuulkiisa rumeey oo gaaladana waan jeclaanaya ilaahayna waan jeclaanaya rasuulkiisa qof mu'mina oo sax qalbigiisa ma ku kulmi karaan ma ku kulmi karo qofku haduu mu'min dhaba yahayba wuxuu khilaafayaa dadka marka ilaahay rasuulkiisa khilaafay uu ka bari noqonaya uu ka fogaanaya walaw kaanu haba ahaadeen kuwa khilaafay ilaahay iyo rasuulkiisa aabaahum aabayaashood ba ahaadeen qofkii mu'minka ah ee mu'minka dhabta ah hadii aabihi uu ilaahay rumeyn waayo rasuulkiisa uu rumeyn waayo ma jeclaanayo uu ka bari noqonaya ilaahay iyo rasuulkiisa bas uu jeclaanaya aw abnaahum ama carruurtooda ha ahaadeen oo way ka bari noqon aw ikhwaanahum ama walaalahood ba ha ahaadeen qofka mu'minka haduu walaalkii gaaloobo oo gaal noqdo uu ka bari noqonaya aw cashiratahum ama qaraabadooda ha ahaadeen oo hadii qaraabadooda ay gaaloobaan oo ilaahay rasuulkiisa ay khilaafaan te qofkii mu'minka ah ilaahay iyo rasuulkiisa si dhab ah u rumaysnaa uu khilaafaya oo marka uu ka bari noqonaya Allah wuxuu tabaaraka wa tacaala ulaaika kuwaas kataba fi qulubihim al-iimaan ilaahay ba marka qalbigooda ku qoray marka iimaan ilaahay tabaaraka wa tacaala in iimaan ay helayaan ayuu marka ugu marka qoray waqti sii horeysay imka lawxul mahfuudka marka uu qoray Allah wuxuu wa ayyadahum Allah wuxuu ku xoojiyay walibana bi ruuhin qur'aan kaasoo minhu ilaahay xaqiisa ka ahaaday oo kala cadeynaya wixii wanaagsan iyo wixii xun oo kala cadeynaya gaalnimadii iyo islaamnimadii oo kala cadeynaya laga wali dhiganaya iyo laga bari noqonaya markaas amba waxa kale lagu fasiray ruuxda afar macna lagu fasiraaye nasrina waa lagu fasiray wa ayyadahum Allah wuxuu ku xoojiyay biruuhin guul iyo gargaar oo minhu xaqiisa ka ahaaday ويدخلهم الله وحقلنا dadka muuminiinta ilaahay rasuulkiisa rumeeyo si dhab u rumeeyay jannatin jannooyinkaas oo tajri ay soconayso min taxtiha jannooyinka hoosteeda al-anhaaru biya khalidin xaala ay ku waarayaan fiiha jannooyinka dhexdooda aayaadkan waxa la sheegaa oo ibn kathiir rahimahullah kitaabkiisa uu ku keenaya inay ku soo degeen abi umayda aamir
ابن عبد الله ابن الجراح صحابي قالق إن مركا آيات كان مركا يكسو الدقين صحابي كان يوحو كمدها العشرة المبشرون بالجنة تبنكي صحابي ويجوا النول ودونك كوركي سجوجا إلهي تبارك وتعالى جنة مركا أوجب بشاري وحلية هاي سيد سعيد ابن عبد العزيز مركا أورينيو آيات وحي كسو الدقتي صحابي وين ومركا أبي عبيدة مركا أها ووحو الدلي أبيه بدلي دقالك بدر بانو كل حد دلي سيدا دراديد أيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أيا وحو يري ولو كان أبو عبيدة حيا لاستخلفته نكي أبو عبيدة هديو النور الله وواجي خليفة يوم تحت نماذج ذلك المسلمين تأمرك وقعنت كوهي هديو النور الله خليف بان كدق لها وذلك المسلمين تأمرك تلادو دي أرهن كود أمرك قعنت وقلين له مركا ذلك المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام وقت جيسي يا صحابتي كدم بيسيبه يدك مسلمين تأسى النهج جود يطريق جود وياهي مركا أي قف مسؤول ونقاني أي دوراني عن طريق كده توان باشرت وجارة وأنا هين متك مركا وقت حاضر كان نشوفونه تطبضنا مسلمين مركا تطبضنا أو أنت أما جارة بدن كود مركا استعمالان أو واحد مركا الله يقانو ديمقراطية أما ديمقراطية وإن لا يراهد قفك مركا شعبت وذلك أوبدنا يوعى ضيان يا مركا مدح لقى دقيقة إن لا يراهد طريقية كدوان أي مركا شرعي إسلام كمركا كسوغان ومركا قفل قدورته محاكم إذا وحاكم إذا درجة القدورته قف كمركا خليفة المسلمين وذاك المسلمين تأوتلنية مركا أوسيدي من يهدي جيريد وتماد أما وحنو صدو أي وحول ليه هي هبل أي أنا قدام بدي أما أنا قداش شيء ده إذن نقول يا مركا خليف ومسؤولية دي مركا أنو ديبيا وقف مركا وكتهم يوناج يا الله كعبس مسؤولية ده مركا إنه كسب بحكره وأنا طريقي النبي عليه الصلاة والسلام وسميه أو كل إشارة أو كتل مامي أو بكر من الصديق أو بكر يسوون عمر وكسي إشارة ويقول عمر فيقدم عمرنا عثمان علي وهكذا وعقلوا جرا ويدنا بنان تدك أهل الحل والعقد الله يقان تدك وحنا فرا وحنا جنته وتدك قضياش يعلمدا يدك أقوياء يدك إن دار جرتك تدك هسا السوء إيمانية مركز السوء ما دام بيوحي ليهن وأروح إنه بعهنا يقف إن دارنا أو ينفعه وذلك مسؤولية دودة يا أمانة دودة قعنت له قليو كدنا ذلك وقوم بضن أي مركز باريان ورح مريان كدنا كواس أي مركز قعنت وقلني أنا مركز السينيان طريقي أصلا مركز كم يدوح له دورته مركز سيد درادي بقى وقول لي هي عمر بن الخطاب هديو أبو عبيدة نولان لها خليفة مركز كدق لها مركز صحابي قال قوي يو آيات كنا تلمامين إنه يكسو الدقين ومركي بدر غزوة بدر أو سكدي سكود عضي أيسكوري مادين قالدي تأبيه بقى كشريبة وعلى وقت الإسلام نموذج مركا بلوغ مركا أحد مركا أبيه بسيدا كدلي وعلى شيء حتى الصديق إنه مركا مانن كاو دلي ويل كيسي مركا عبد الرحمن مركا لورنج سيدا وكلا أو إخوانهم على شيء حتى مصعب بن عمير إنه دلي ولالكي عبيد بن عمير لورنج سيدا عنتي سكود دلي بالة الماما سيدا وكلا أو عشيرته وحالة الماما حتى دقالكي بدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قف قريب ودوا قرابة الله مركا إن مركا يسوق مركا ودلي حمزة يا علي وقرابة يجون أهنا إن مركا الدلين يعبيد حارث إن الدلين عتبة يشيبة يوليد عتبة ما ننكاس أي مركا مفسرين تجيب ابن كثير رحمه الله برت مركا وكل شيء مركا آيات كاس واحد المامة يعني بعد الله واحد المامة سبب وجه ذا إن مركا صحابته إلهي سدبا ورميين وحي إلهي أمرين سيدي مركا يوقبنيين مركا ما دام إلهي سدبا ورميين تدك إلهي كسهور سيد مركا إسكهور يمادين أو كوني أي ربين دينت إلهي إني بابضة يجونا أي ربين لتكون كلمة الله هي العليا دي وحي كانتي إنو آبهود يولالكود يقرابدو دي مركا يعرتو دي مركا أي دلان أو مركا أي كو مركا كغسيان مركا waxaad garanaysaa marka qiimaha marka ay leedahay qofku markuu Ilaahay si dhab marka u rumeeyo waalidkaaga markaas hadii uu gaal noqdo qaabka loola dhaqmayo quraankuna wuu tilmaamay sharciga islaamkuna wuu cadeeyay oo waalidka haduu gaal noqdo samafal uu ku leeyahay waadu samafali wax waad siin
وحوي وناغو دم بعض قبن باري بعض النقن لكن قال نما كيليس وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس به علم ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا على أن تشرك بي الله وحده تبارك وتعالى هدي لبدي ولا يكون دالان إن أنا إي شريك ير ما ليس لك به علم ولبنا وح على عليه وحنا قرني أدي يقول شريك ير إلا قفكم مركو إلهي وشريك يلي وحي يقول شريك يلي ما قرنيه ما بقرنا يبا مركا هدي تاسكو لي ما دان الله تبارك وتعالى وحليها أديعي فلا تطيعهما لبدي والد مكا قادنس مركا طاعة الوالدين ووحي معروفة ومركا وناقة الله لكن وحي وصاحبهما في الدنيا معروفا وحي وناقة أدونك دحديسا كل صاحب وصمفل وحسي وحقبه أمر كود يوحي وحكا عصدان يال وحاس مركا وإحسان يصمفل لكن قال لهم مركا مكا يريس الله تبارك وتعالى مركا وحي ويدخلهم جنات ددك مركا إيمانك دبا لا يماده ووحوي كبر نقضاء أو خلافة ذلك إلهي رسولك سخلافة ولو آبياشو يعروتو دي ولاله دي قرابوه هالنقضانه يدخلهم الله وحو قلنا جنات تجري من تحتها النار جنوين أي هوستو دي مركا وبي مركا أي سعونيا خالدين فيها حالاء كواريا رضي الله عنهم إلهي بكرها لنقضي كواس والسداس إلهي سدب ورمي ورضوا يونا الله أي كرها لنقضين ورضوا يونا رهالي من نقضين عنه الله حق سير رهالي كنقضين الله وحلو رائك كواس حزب الله وإلهي حزب جيسي يمركها كوحديس ألا براروغا إن حزب الله إلهي حزب جيسي كوحديس هم يجا أنبا المفلحون كوا مركا اللي يباني مركا الكاين سكوتشنا بارك الله فيكم وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك